roob aad iyo aad u tiro badan ee magaaladan aan joogo ka da'ay waana sababta keentay in aan laba jaako isku dulqaato muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago kulan habeen dhaweed lagu maamuusayay adeer Sheekh Axmed Nuur Sugalle wax badan oo la taaban karana bulshada Soomaaliyeed u soo qabtay kulankaas oo runtii ahaa mid loogu talagalay asaga in lagu maamuuso ayaan rabaa inaan idinkula wadaago waxaan rabaa sidoo kale inaan idinla wadaago kalimadihii laga jeediyay halkaas oo lagu maamuusayay adeer mahadsan tahay inaad noo soo noqotay Sheekh Axmed waana ku faraxsanahay intii aad naga maqnaydna hawshaad ku jirtay waa la soconaa iyo hawshaad waday soo dhawow Sheekh Xasan Sunni oo mar dhaweetaan iska wada kaftamaynay baa wuxuu igu yiri xafladda adeer Sheekh Axmed Sugulle baynu ku soo dhaweynaynaa dhinacna looga bixi maayo waxaan rabaa inaan idhaahdo madal intan isugu timi akhyaara oo laga yaabo inay muddana kala maqnaayeen oo kaftan lagu oran waayay oo la isugu duur xuli waayay de waxay noqonaysaa xaflad bila xawaasha marka baashu dhaqankii ay lahayd iyo caadadeeni marnaba inaynu ka baydhno maaha marka Xasan Raali buu iga yaraanaya marka aniga soo dhaweynteeda kaftan baa ila socda waxaan rabnaa inaan adeer Sheekh Axmed aan dhahno kulankan waxa uu daaran yahay in adiga lagu mahad celiyo dadaalkaadii iyo juhdigii aad u soo qabatay bulshada muslimiinta Soomaaliyeed oo ay kamid yihiin dacwadan aad runtii waqti badan gelisay yaraantaada ilaa aad ku cireysatay tusaale wanaagsan inaad bulshada u noqoto Soomaaliyeed oo halkaan muuqaalka walaalaha ay duubayaan dad badan oo halkaan aan joogin oo gaaro ayaan rajaynaynaa insha Allah taala Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka kugu daro maalin aad u baahan tahayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu badbaadiyo anigu majliskayga dadkayga ehelkaygu tolkaygu waa masjidu Abi Bakar iyo siyaaral dhalinyarteeda iyo dumarkeeda markhaati iga ahada haddaan dhintana qof haygu halaynina Ilaahay subhanahu wa ta'ala ii soo duceeya qof nool oo siyaaral ku dhintayna inta aan noolahay majliska iyo masaajidka aan ku tukado hebel nin la yiraahdo dhintay oo saaxiibka yahay Ilaahay ha loo bariyo saan baan idhaahdaa Cabdi Haybe ninka lagu yiraahdo Cabdi Qaadir inta dhimatay mid walba markay ishaan masaajidka ilaa waxa inoo yimid maanta qof saaxiibka yahay dhintay meel fa ku dhintay fatxada ha loo duceeyo qof walba waxa doonaysa Allah ku siiyo aakhiriya doon waxa meeshaad ka bogtana Allah ka gufeeyo shaydaanka ku soo galayna Allah ka fogeeyo awlaadaada iyo arsaaqdaada iyo cimrigaaga iyo amalkaaga intaba iyo ceeb adduun oo Ilaahay ka ilaaliyo intaasna Allah ku siiyo Ilaahu ceeb adduun naga ilaali Ilaahu caruuraan barakala naga ilaali Ilaahu ceeshan waasac naga ilaali Ilaahu amal aan la aqbal naga ilaali Ilaahay ceeb adduun iyo cadaab aakhiro inta naga wada ilaali Ilaahay cimri aan barakala naga ilaali Ilaahu intay noloshu khayr nooleedahay noole Ilaahu maalinta ayna khayr nooleehayna noofso annaka oo ku jira cibaadada Ilaahay iyo shahaadada laa ilaaha illa Allah kuwa adduunka ka bax Allah inaga dhigo walaala isurna oo qalbigoodu isu xaran yahay Allah inaga dhigo Allah yow naga saar tashwiishka iyo qalbi xumada iyo xanta iyo beenta اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه رجل الدمر وسلامتين maamada hooyaday ayaa markaan u sheegay in adeer uu soo socdo ayaa waxay ka codsatay markuu nasto kadib in ay doonayso in kulan lagu maamuusayo loo qabto alxamdulillah kulankii sidii ay rabtay ayuu u dhacay marka waxaan rabaa inaad dhamaantiin u duceysaan hooyo Xaliime Sheekh Ibraahin oo runtii aad iyo aad ugu faraxday in kulankii lagu maamuusayo adeer sidii ay damacsanad u dhacay xaqiiqatan wax la koobi karo amaantiisa iyo wanaagiisa maaha waliba khaasatan inagu markaynu reer siyaatalnahay adeer Axmed juhdiga uu maanta dacwadaas iyo isku xidhkeena iyo isu keenideena iyo midnimadeena iyo sida uu uga shaqeeyay kaliya iyadan taas kaliya aanay ahayn haddana dacwadaas iyo diintaas sida ugu taagnaa habeen iyo maalin marka Ilaahay wax loogu mahadiyo weeyaan runtiina aad baan uga mahad celinaynaa isagana juhdigiisaas iyo dadaalkiisaas Ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu isaga oo kale inoo badiyo
oo kuwo khayrka mar walba ku dadaala oo ka shaqeeya oo rabbi subxaanahu wa tacaala wax walba ka hormariya midnimadooda iyo isjacaylkooda iyo wanaagooda ka hormariya rabbi subxaanahu wa tacaalana waliba waxaan sii weydiisanaynaa inuu rabbi subxaanahu wa tacaala inaga ilaaliyo tafaraaruqa iyo danaha shakhsiyaadka ah iyo qofku inuu dantiisa uu ka shaqeeyo ee aynu noqono kuwo ilaahay dartii u istaaga oo diintooda ugu istaaga rabbi subxaanahu wa tacaala dartii ugu istaaga danahooda caamka ana ka wada shaqeeyo oo runtii u istaaga inay mar walba isku kaashadaan sida rabbi subxaanahu wa tacaala buu ina leeyahay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo kulankaasi dhowr ruux oo ka qayb qaatay inuu dhaco oo ayaga la'aantood runtii aanu hirgali lahayn. waxaa kow ka ah Xuseen Ismaaciil ama Xuseen Bashiir oo ka mid ah culimada magaalada. sidoo kale waxaa ka mid ah Cabdisamad Sharaf oo runtii masaajidka jamacada joogto iga ballan qaaday inuu gaarsiin doono dad badan la casuumay. sidoo kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo Ikhra oo iyaduna runtii waqti badan gelisay iyo Sahara iyo Nasr iyo Rooda. gabdhahaas oo dhan waxay ka mid ahaan gabdhihii subax aroortii jikada galay ilaa iyo habeenkii kulanka laga gaarayna dadka halkaas lagu casuumay raashinkooda diyaarinay. sidoo kale meesha qurxiyay iyo gabdho badan oo laga yaabo magacooda hadda inaan sheegin laakiin qayb ka ahaa in kulankaasi si sharaf loo dhaco. dhammaantiin waxaan ka codsanayaa u duceysaan in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abaalmariyo ajir aan la soo koobi karin oo ka siiyo maalin ay u baahan yihiin insha Allah tacaala. marka kulankii waxaan casuunay dadkii ugu sharafta badnaa ugu qiimaha badnaa community-ga ayaan casuunay. waxaan sidoo kale ku sharafnay adeer Nuur Gaas oo ka mid ah odayaasha magaalada in uu go'i shaalka ahaa iyo hadiyada loogu talagalay adeer in uu isaga mataqaanaa madaxa ka saaro sida muuqaalka ka daawanaysaan isaga ayaa si wanaagsan oo sharaf leh adeer u guddoonsiiyay hadiyadii aan ugu talagalnay. inna allaha ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وينتجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. خير الله سيو شيخ عبد الحكم جزاه الله خيرا. waxaan rabaa marka hore inaan idiin sheego waxa inala joogo wiil u dhalay walaalkeen Umar wiilka dhalinyaro halka fadhiya. markuu barnaamijku noo dhamaado insha Allah tacaala waxaan ka codsanaynaa inaad wiilka u duceysaan aan mataqaana xogaa quraan ahna aan saarna hadii Alla iska raajisan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafiyo. marka inaad joogtaan aan rajaynaynaa marka barnaamijku noo dhamaado dhowr daqiiqo biidnillah. insha Allah waxaan isku dayi doonaa barnaamijkeena inuu saacad ka badnaanin ama ka yaraado insha Allah. dad badan ayaa shaqada saacada kadib waxaan rabnaa dhowr ruux inaan hadal la siino insha Allah. كلي وحدي وقت ونوصل حره قفل بهالكان جوه وحنسكت دينا إنه بالكلمات سودوينه ويرى هذا إن شاء الله تعالى أدر مدام مجال دي سود بقول صار لابطي أنتوا إن الجوجان وإسكا كوبنا نساء ورجينا يعني مشاريع هالكسو كود وصير لما يسترون لابطه لكن وحرمنا لمانتين إن الدور كلها تنسودوين إن شاء الله تعالى. شيخ أحمد أنا أبو بكر كسودو قارن كريم أيو عم بليجو مسودو أيو الفاقد شيء لا يعطيه qofkuna waxaanu awoodin iyo meel aanu cid ku soo dhaweyn karin ma yiraahdo ku soo dhawow laakiin odayaasha kale inta arinta awoodda u leh ayaan u deenayaa inta laakiin magaaladaadii iyo akhyaartaadii iyo jaaliyadaadii oo ku jecel ku soo dhawow baan ku leeyahay
intaa waxaan ku darayaa dhowr shay oo nebi maxamed salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu calayhi uu sheegay sifooyin ah dhowr sifoo nebigu uu sheegay sala allahu calayhi wasalam oo xadiid weliba uu ku sheegay xadiidkii abu muusa alashcari radia allaahu canhu wa ardaah ayaa sheekheenna inooga muuqda naxsibuhu kadalika walaa nusaki cala allaahi axad dee sheekh axmed inuu caalim yahay sheekha yahay daaci yahay dii shaybana uu yahay habliina maqli maayaan baan u malaynayaa yaa wadaadkuula waa dhalinyaro waa xooge inuu yahay dawe ka muuqataa waynu wada ognahay markaa ikraamidda aynu ikraaminayno iyo soo dhoweynta aynu soo dhoweyni iyo taqdiirka iyo maamuuskaynu u muujinaynaa waa mid la ina faray waxaanu calaamad ka yahay inaynu ilaahay weynaynayna tabaaraka wa tacaala waa daaciga aad arkaysaan oo meelo badan baanu ku kulannoon halkan ahayn weliba waxaan ku darayaa caawa mar aanu kulanno aanu ogeyn oo beri hore ah isagoo masjid burca ku yaalla ka wacdinaya salaad maqrib kadib oo aanan weliba markaa aqoonin sheekh axmed intii ka dambaysay meel kastoo aanu ku kulanno aanu isku aragno wuxuun baanu isugu imanaynay ama aan ku arkaya isagoo khayr iyo dacwad iyo diin wada ayuun baan ku arkayay idan sifadii labaadna waa leeyahayoo ikraamka aynu ikraaminaynaa ama soo dhoweynayna iyo taqdiirkaynu u muujinaynaa waa ku waajib inagu ah kana turjumaya inaynu ilaahay weynaynayna tabaaraka wa tacaala marka waxaan leeyahay ugu dambayn anigoon hadalka hoos ugu sii daadegayn beri aanu haddaan yaro afaraydan waan yaro tuurtaay ogaado oo maaragtay nin baanu afaray ku kaftami jirnay beryaha ka mid a marka waxaan arkay wadaadkii nin wadaadana u ahaa oo baasha intay la yaro baydhay meel la sii yaro gelayso marka kelimad aan ku lahaaba waxaa ku jiray hambee hadalka hoos ha ugu degin hilinka yuu seegin bahalku dee wuu yaro qalloocdaayo dadka shucarada ahi dee waad ka waraysaan xaaladooda marka aanu iminka hadalka hoos ugu sii daadegaynin adeer soo dhowow mar labaad oo magaaladaadii ku soo dhowow akhyaartaadii ku soo dhowow laakiin daan kugu celi anuu masjidka kugu soo dhoweyn karmaa iga raalli how asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal badani ma furna waxaan leenahay uun alwaalid sheekh axmed soo dhowow magaaladii aad ku soo noqotay mid baan ku darayaa waxaan leeyahay uun dee hadduu sheekh yimaado macallin fadhiisay baa la yidhi dadkii shaabadaha iska soo wareejiyaan hadda maaragtay la maqnaaya shaabadihii maaragtay communitiga inay iska soo celiyaan baan odhanayaa anugu intaasaan odhanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu masaajidka aynu maanta dhex fadhino iyo markaska islaamiga ah ee uu howl badan ka soo qaatay horumarkeeda iyo dhismaheeda waxaan xusuustaa markaskan maalintii hawshiisa la saxiixayay inaynu markaskan iibsanno oo la wareegno ayaa waxaa la yidhi lacagta markaska qiimihiisa uu joogo wax u dhow ma xataa iska daa inaynu haysanee wax u dhow xataa ma haysano sidee loo bixinayaa yaa bixinaya goorma la bixinaya sheekh axmed nuur kalsooni uu ku qabo ummadda soomaaliyeed iyo jaaliyadda iyo intii uu ku soo jiray hawsha fidinta diinta islaamka iyo daacinimada uu ku soo jiray waayo aragnimo uu ka helay ayuu wuxuu nagu booriyey oo nagu dhiirigeliyey in la saxiixo isagoo ku kalsoon in lacagta markaskan uu joogo la bixin doono sidii uu noogu booriyey ayaa loo saxiixay sidii uu noo sheegay oo saadaaliyey ayaa dhaqaalihii dhinaan loo bixiyey jaaliyaddan ayaana bixisay walilaahi alxamdu walminna geesinimo runtii aan markaa nagu jirin ayuu nagu booriyey oo na geliyey sidaa awgeed ayaa markaskani uu
ku istaagay ku horumaray horumarkiisana wuu ka shaqeeyey waad aragtaan maanta markaskani yacni qiimaha uu leeyahay hadday noqoto dhulkanaynu degannahay ama gobol ha noqoto ama waddan ha noqoto iyo adduunyada inteeda kale ama Soomaaliya ha noqoto ama Yurub ha noqoto ama meel kale ha noqotee magaca iyo qiimaha uu leeyahay markaskani waa ognahay wuxuuna ku hirgalay oo aynu arrintaas ku hirgelinay waxa weeyaan dadaalka iyo juhdiga Sheekh Axmed iyo dadka la mid ay geliyeen ama ha noqdeen culimada ama ha noqdeen macallimiinta ama ha noqdeen odayaasha ama ha noqdeen dumarka ama ha noqdeen jaaliyadda oo dhan guud ahaanba gabow inoo marayaa waxaan isku dayaynaa insha Allah taala inuu sii dheeraanin haddii Allah idmo dad xuseen dacwaqi kamid iyo shaqo leh oo soo eegayaan raalli ahaada mar dhow waxaan u dhiibi doonaa adeer nuur oo hadiyad gudaysin doona adeer Sheekh Axmed insha Allah taala laakiin intaan u dhiibin gabadha waxaa jira saaka aroortii jikada galay oo ilaa iyo 5 galabnimo ku jiray oo cuntada noo diyaariyay ilmaha ka xanuunsan qaarkood waxaa marka soo codsadeen adeer Sheekh Axmed inuu si goona ugu duceeyo wiil aan magaciisa sheegi doonto Sheekh Axmed oo la yiraahdo Munir ninkaasna si goona ugu duceeyay la codsanaa insha Allah taala waa majlis fiican inagoo xishii soo tukanay oo muuminiin oo wanaagsan baynu isugu wada nimid qalbi wanaagsan baynu ku wada fadhinaa walaalayaal laba qalbigooda wax isugu jiro insha Allah taala bani aadam bayna ma jiraan labadii qalbigooda wax isugu jiraan waan isxabfino aan isxabfin ooti hal isxabfiyo dhammaan hal isxabfiyo ما يسعفينها هذا وارون رون ما يسعفينها اسكوا ذو هلا يسعفيه ما شاء الله هلا يسعفيه قبلها waxay soo codsadeen ay inoo sheegeen ee khayrka ay doonayaan mid waliba waxay doonayso allaha gacanta uga haya ilaahay oo si ilaahu caafimaadkay doonayaan si ilaahay tii caruur doonaysa si ilaahay tii cibaado doonaysa si ilaahu tii maal doonaysa si ilaahu tii dambi dhaaf doonaysa ilaahay tii awlaad doonaysa si ilaahay oo anagu ma ogin anta a'lamu bihinna ilaahu adiga anagu og mid walba waxay doontay inuu si wixii bukana ilaahu inoo caafi wixii buka ilaahu inoo caafi wixii buka uu ka mid yahay wiilka quraanka inuu ku aqri doono iyo waxaynaan ogeyn oo dhan cafad Allah siiyo ninkii taraag doonaya Allah u sahlo mid khayr leh kii gabadh doonaya Allah u sahlo kii islaanta ay isaga wax jiraan shaydaanka Allah ka kaxeeyo gabdhaha waxay doonayaan oo dhan gacanta Allah u galiyo dhalinyaro ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idin bariyay inta maanta iyo gabdha iyo dumar ee soo shaqeynaysa iyo xasan iyo cabdi samad maalinta qiyaamada Allah idinku abaalgooda wax soo qabateen idin ma abaalgooda karna idinku qiyaamada Allah idinku abaalgooda maalinta qiyaamada Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kaasna hadalkii waa haray khayr baan idin rajaynaya waxa gadaal nooga yimid Sheekh Cabdiraxmaan Suusi ilaahay subxaanahu wa tacaala khayraasi sheekha kelmad baan noogu qornaa laakiin wanaga soo daahay marka waa martin waa inoo sheekh intaan u gudbin adeer nuur waxaan rabaa inaan Sheekh Cali oo codsaday in mikrofoonka dib ugu soo celiyo inaan bal u dhiibo insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمك كفتن كي سيودي ما ينلعبسن إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد واحد مغلس أنا خياري الشيخ أحمد وحين نقول بحي مسجد كي وكمر خاتك عين الرئيسي على اللسان يهينا مسجد كوقي مقبضان منطقة دي لقد سي وحاو تباحي حداني مكا لقد ديرين الساقة هذا ما ركته يا وصل رأيه هل شيء بك عوضاء هكوش وحانو يرشاني يتبون كوميان
mar hadduu masjidku ku magacaaban yahay rees yaadhan gogoshu inay ka xumaato maaha sida uu muuqiisu u qurux badan yahay gogoshiisana u qurux badnaato waajib bay nagu tahay intaynaan barnaamijka la gelin akhyaartii oo dhan baa halkan joogta sheekhana inaynu meel kale u sii dirno nidhaahno 15 meel kale ka sii raadi aniga ilama qurux badna haddaan idin war reer abtagay deeqdu xaggiisa ay u badan tahay cali gardna caawa isaga ma aragtay haddaan idin faanadii oo idin war reer abtagay tan waa loo dhan yahay sheekha laakiin ma yaday abaabulkan loo dhamayn anigu waxaan islahaa mar dambe ilaahay waxaan weydiisanayaa majliskan kii khayr ka badnaa kii marar badan la isugu yimaado kii qalbigeenna isu soo celiya qalbigeenna inta kala tagsanaydka rag iyo dumar ilaahay kaaha ka dhigo ilaahay kaaha ka dhigo allahumma salli wa sallim calaa nabiyina muxamed wa ala alihi wa sallam rag iyo dumar waa salaamantihiin iga gaadhsiiya salaamta baarakum allahu fiikum hadiyo guudeysin doona adeer sheekh axmed kabacdi hadiyad kala jirtay oo middan waa naga hoos kacday mid kale oo aniga cabdisamad aan soo diyaarinaa jirtay tayna waa hadda inaan qarsanay baa naga maraysaa mid kale baa meesha timid marka adeer nuur intaan u dhiibin walaal cumar wiilkiisa ayaan jeclaan lahay inaan bal quraan ku akhrino mise adeeraan hormarnaa marka hore bas waay adeer nuur hay كون يسووا قو شالة كي شرفت كي شرفت وهي waxa ku xiga waa waxa halka ku jira oo sheegi maayo iga gudoon ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله tan waxaan ka tusaysaa masaajid buu hadla anoo dhisaya ayaan waxaan ku dhisay microphone farxadaydu maanta ay maalintaas isku mid 9 iyo 9 meelaha markaasaan maalin baan waxaan hadlayay 15 daqiiqo 15 saacadood yaan mikana waa marka xanuunkan iga raacsan iyo 10 saacadood baan hadlayay lacagtii dumarku bixinayeen baa iga dheeraatay lacag Soomaaliyeed waan hubayo 30 milyan baan qabtay oo shilin markii dhammaan waxaan idhi war caruurta dumarkiin na caruurta biilka ha ka soo qaadin ana u kaadiya caawa horta waa caruurta biilka u daaya habeenkaas aanu tacaawud jooga ma sha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahayow waxaan aad siisay fidna ilaahu ah iga dhigin kol sharaf aan leeyahay ma mid aan leeyahay ma barnaamijkii waa inuu gabagabo marka waxaan isku daynaa insha Allah inaan bal adkaarta ku akhrino wiilka kabacdina nacsheen insha Allah halkan dhax soo fadhiis